ciidamadii Hitler ee Naasiga ay ka adkaadeen dagaalo lagu leeday bay galeen waxaana lagu tirin jiray ciidamadii ugu awoodda badnaa taariikhda aadanaha waxaana ka asaasmeen gundaha Ruushka galbaday si ay ugu noqdaan gaashaan fikradda shuuciga midabka dhiiga ay halku dhig ka dhigteen si ay ugu xasuuqaan cadawgooda iyo cidda madhabtooda diidan ciidamadii Casa ee Sofiyeetiga markii ay burburtay imbaradoriyadii Ruushka iyo kacdoonkii shuuciyiinta ee sanadkii 1917 waxa madaxdii hanti wadaagu gacanta ku dhigeen maamulkii Ruushka oo dhan kadib burburkii ku yimid ciidamadii boqortooyada waxa shuuciyiintu daahfureen mashruuc lagu qoramaynayo dadka rayidka bishii January 28 sanadkii 1918 waxa soo baxay warmurtiyeed nuxurkiisu yahay in ciidamada dawladdu ay qoranayso ay ka soo baxayaan beeralayda iyo dabaqada shaqaysa arrintan waxay heshay garab fiican iyo soo dhaweyn aad u sareysa oo ka timid bulshada inta kadib waxa la buddigay ciidanka shaqaalaha iyo beeralayda oo magaciisu noqon doono ciidanka Cas ama Red Army dagaalkii u horeeyay waxa uu ciidankani la galay Jarmalka 23 February sanadkii 1918 intii lagu guda jiray dagaalkii koowaad ee adduunka maalinkaasina waxa uu noqday maalin qarameed loo dabaaldego awoodii uu soo bandhigay ciidankani awgeed ayaa shuuciyiintu soo saareen warmurtiyeed kale oo sheegaya in qasab lagu ciidamiyo dadka beeraha fala iyo dabaqada shaqaysa ee farsamayaqaanka halkan ayaana barbilow u noqotay xoogaysiga ciidankii Casa ee shuuciyiinta uuna hogaamiye u ahaa Leon Trotsky loona tiiriyay inuu ka dambeeyay aasaaska ciidanka Casa ee Sofiyeetiga dagaaladii sukeeye markii la dhameystiray yagleelka ciidanka waxa si degdeg ah ku bilaabmay dagaalo sukeeye sanadkii 1918 una dhaxeeyay ciidamada balaashifada ama ciidanka Cas iyo xoogagii ka hadhay ciidamadii Ruushka oo ay taageerayaan Ingiriiska Faransiiska iyo dawlado kale khasaaro tiro badan ayaa ka soo gaadhay ciidanka dagaalka ilaa la gaaray sanadkii 1919 oo uu la wareegay goobo muhiim ah ayna u soo gacan galeen ciidamo tiro badan oo saraakiil hore ahaan jiray taasina waxay wadada u xaadhay inuu gabi ahaanba ciidanku la wareego goobihii dagaalku ka socday sanadkii 1920 laba sano kadib ciidankii Casa wuxuu qaatay libta guusha dagaaladii sukeeye inkastoo askar badan oo khibrad lahaa ay ka geeriyoodeen dagaalka balse waxa Sofiyeetiga ka caawiyeen dagaalka ku gacan sareeyay waa ku qancinta beeralayda iyo shaqaalaha inay ka mid noqdaan sufuufta ciidanka iyo tababaradii ay heleen intii dagaalku socday sidoo kale ciidamadii la dagaalamayay oo ku soo biiray balaashifada kadib markay ku qanceen fikradda shuuciga dagaalkii labaad adduunka intii lagu guda jiray dagaalkii labaad adduunka iyo weerarkii Hitler ee Sofiyeetiga ka dhanka iyo jabkii Joseph Stalin waxa ciidamada castiradoodu gaadhaysay 5 milyan oo askari kadibna waxa ku soo biiray 3 milyan oo kale taasina waxay waji kale u yeeshay dagaalka magaalada Stalingrad ayaa ciidamada naasiyiinta lagu dhadhansiyay guul daradoodii u horeysay ciidamadii Casaana hore ay u socdeen ilaa ay gaadheen magaalada Berlin warbixinada qaar waxay sheegayaan in ciidamada Hitler ay ka cabsan jireen inay u gacan galaan ciidamada Cas arrintaasi waxay ku riixday qaar ka mid ah saraakiisha naasiga inay qudha iska jaraan waxaana ka mid ahaa sarkaal caan ah oo la oran jiray Heinrich Himmler kadib xasuuqii uu ka geystay gudaha Ruushka iyo weerarkii arxanka darnaa ee Sofiyeetiga taariikhyahanada qaar waxay sheegaan in ciidankii Casa sabab u ahaa gabagabada dagaalkii labaad adduunka awoodiisa aadka u sareysay iyo khibradda uu ka helay dagaaladii sukeeye ee uu ku jiray labada sanadood darteed ayaa ka dhigtay awood aan la yareysan karin haweenkii ciidanka Cas iyagoo ay raggu ka ciyaareen door muhiim ah dagaalkii labaad adduunka haddana waxa jiray haween ku wehelinayay dagaalka oo sufuufta ciidanka ka tirsanaa waxaana shaashadaha ka soo muuqdeen markii ugu horeysay sanadkii 1941 iyadoo ay tiradoodu gaadhaysay 800,000 oo askari sidoo kale waxay gacan weyn ka qaateen guuldaradii Hitler ee howlgalkii loogu magac daray Barbarossa haweenkan waxa qaarkood ahaayeen duuliyayaal diyaaradaha dagaalka 23,000 oo tan oo bambooyin ah ayay ku duqeeyeen meelo kala duwan waxaana ka qayb qaateen 30,000 oo duulimaad dagaal ilaa intii dagaalku soo afgo'ayay sidoo kale waxa lagu taxay abaalmarino ciidan oo Sofiyeeti ah haweenkaasna waxa ugu caansanayd Marina Roskova oo ahayd duuliye arxan daran burburkii ciidamadii Casa kadib dagaalkii labaad adduunka waxa ciidamada tiradoodu gaadhaysay 11 milyan oo askari inta kadib waxa hoos u dhac ku yimid tamartii ciidanka waxaana sanado yar markii ka soo wareegtayna tiradoodu noqotay 3 milyan oo askari dabadeed magacii halku dhiga u ahaa waa laga bedelay calanka astaanta u ahaa waxaanay noqdeen ciidamadii midowga Sofiyeetiga ilaa uu burburay midowgaasi sanadkii 1991 waxaana bilaabmay furfur baaxad leh oo Sofiyeeti ah kaalintii ciidamada Casna waxa galay xoogagga qalabka sida ee Jamhuuriyadda Ruushka halkaas ayaanu ku soo gabagaboobay ciidankaasi iyo taariikhdii awoodda ee uu soo jiray haddaba daawada ma kula tahay in ciidankani dib ugu soo noqon doona adduunka